waxaan u malaynayaa maalmo waxaan ajanduhu yahay wixii ka dhacay muxuu ahaa guriga senator cabdi xasan cawaale shalay wixii ka dhacay dhacdadaasu runtii shalay keliya ma dhicin waxaad la socotaan 17kiina dhacdo kala dhacday haddaan gadaal ugu laabto waddanka aan hadda joogno runtii wuxuu ka yimid meel fog waxaad la socotaan dowladdii naga burburtay waayaheedii dambe in saraakiishu ciidamadu taliyaashu ay gacmahooda ku wateen maxkamadda taasoo dadka shacabka argagax badan gelinaysay mas-uuliyadda dowladdana sometimes argagax gelinaysay oo laga yaabo nin taliyaa intuu muxuu ahaa markii jabaduhu kaceen xoog fara badan isticmaalo inaysan dhicin wax sharciya iyo wax nidaama ee qabanaya inaysan jirin taas waxay keentay dadkii inay sharciga ka shak inay muxuu ahaa ayaga iyo dowladda shaki soo kala dhex galo dadkiina ay muxuu ahaa ay u gudbaan inay qoryo qaataan oo jabhada iyo meesha ka dilaaco dowladdanada qaaligan u ahaydna ay meeshaas ka baxdo waxaa la galay waqti adag oo muxuu ahaa ninka qoryaha badano ama ciidamada badan haysta uu madax dalka ka ahaa jiray uu rabo inuu dalka madax ka noqdo dadka soomaaliyeed way aqbali waayeen taas maanta waxaan joognaa in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo weligii aan bistoolad yeelan inuu intii la doorto dalka madaxweyne ka yahay nimankii ciidamada faraha badan haysan jirana aysan wax muxuu ahaa mansaba aysan ku helin qoragii iyo awooddaas 27 sano ka bacdi in ciidamadii iyo muxuu ahaa shacabku kala shakiyaan in saraakiishu haddana ay sharciga gacanta ku qaataan wax maxkamadu qabanaysa aysan jirin waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed ma aqbali karto madaxweynuhu shalay wixii dhacay aad buu uga hadlay ra-iisul wasaaruhu wuu ka hadlay dad saraakiila waa loo xiray laakiin waxaan soo jeedi lahaa inaysan ku fillaanayn dadaa loo xiray meesha aan rabno ay tahay in maxkamad cadaalada la soo saaro dhacdadii hore dhacday si ilbaxnimaha laysku dacweeyaa in soomaaliya sharci u shaqeeyo aadaan usoo dhaweynaynaa ma cabdiraxmaan juhur la dacweeyo maxkamaddu sii dayso haddana racfaan laga qaato lees celiyo lees dacweeyo arma waxbuu helayaa aan waxu weynaa taas waa sharci ilbaxnimaha oo loo baahan yahay laakiin waxa ayaan daraa inaan dhacdadii dhacday iyo saraakiishii meeshaa falka geysatay iyo dadkii la xasuuqay inaan hal qof loo qaban waxay sahashay haddana in guri cadda xasa cawaale la galo waxay haddana sahalle in biri haddana guri kale la galo waa in qofta dambiilaha haddii saraakiishu saan ku hore u yidhi aan sharci qabanayo xakamayna aysa qabin waxaa qasbaysa inaa madaxdu xataa inay saraakiil ciidamada ka baqdo marka ma rabo inuu ila sii fogaado sida dowladda ay shalay muxuu ahaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo laysuuda xil qaamay oo loo soo xiray runtii aaday arrin lagu qanci karo tahay waxaan markaas ku soo koobi lahaa in loo yeero wasiirka amniga oo wax laga weydiiyo dhacdadii 17 ka dhacday iyo midda shala dhacday kow laba waxaan soo jeedi lahaa in loo yeero muxuu ahaa wasiirka cadaaladda sida cadaaladda aan rabno inay noo shaqeydo ay maanta tahay ma cadaaladdan wax su-aalana laga weydiiyo in aan waxa xasuuqi halkaa ka dhacay aan hal sargaal loo qaban waxaan kaloo isleeyahay xeraalyuhu runtii dacwuu soo ogo xaqu u leeyahay dacwo ogo laakiin dembiye markuu arkay dacwada uu xoogayo muxuu u soo oogi waayey dembigii saraakiishii warqaddii uu qoray falkii ka dhalatay ee xasuuqu ka dhacay xerayaan waxaan uga fadhinaa inuu soo oogo dacwo kale si kalsooni u dhalato oo dadkii warqaddii uu dhiib aniga asiga waa la sheekaystay runtii mar kasta warqadaha waa qoraa cidda sharciga uu soo ogaa laakiin wuxuu yidhi anigu dadka habeen madow hal dheelmadana ma dhihin habeen madow hal la laaya ma dhihin hadday saas tahay waa in la helaa waa in la soo ogaa oo lagu soo ogaa dadka falkaas geystay dembi saas darteed isla xisaabta saan u helno waxaan soo jeedi lahaa in wasiirada ay qusaydo hadday military tahana in wasaaradda gaashaandhigga lagu soo daro haddii waxa falkaa geystay ay wasaarada muxuu ahaa wasiirka amniga ku filan yahaan in loo yeero muxuu ahaa wasiirka garsoorka inaan arrintaa wax layska weydiiyo si kalsooni loo helo si dadka hubka looga dhigo si aanan ugu baahan muxuu ahaa qorad dambe iyo waxaas aanan u aadin si xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaaraha maanta ayagoon bistoolad leh ay madaxa noogu yihiin ilbaxnimada inaan hore ugu soconno aadaad mahadsantihin